It is Green Bay's oldest cold case, the killing of Lisa Holstead. She was 22 years old when her body was found in August of '86. Authorities say she had been strangled. Agoosto 12-1986 22 jir Lisa Holstead ayaa la waayay meel ay jaani cirib dhigtay. Saacado yar kadib meydkeeda ayaa laga helay iyadoo taala xeebta galbeed beerta warshada ee dekedda Green Bay ee gobolka Wisconsin ee waddanka Mareykanka. weliba iyadoo kufsi iyo dil la iskugu daray. yaa dilay Lisa? maanta waxaan eegaynaa kiiska cabsida iyo argagaxa leh ee Lisa Holstead. laakiin intaan bilaabin muuqaalkeena maanta hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan kuu dhaafin. like iyo share nagu dhiirigeli. mahadsanid. Green Bay waa magaalo yar oo ka tirsan stateka Wisconsin ee waddanka Mareykanka. waana magaalo ay ku nool yihiin dad kor u dhaafaya 105,000 qof. waana magaalada saddexaad ee ugu dadka badan gobolka Wisconsin. sidoo kale magaaladan ayaa leh Mayer Street, waa mid ka mid ah meelaha taariikhiga ee lagu soo bandhigo dhaqamada taasoo ay ku faanto magaaladan. sidoo kale magaaladan ayaa leh kooxda kubadda cagta ee Green Bay Packers, kuwaasoo caan ka ah guud ahaan waddanka Mareykanka. aan u soo laabanno kiiskeena. Lisa Holstead ayaa dhalatay 18 Abriil 1964 gaar ahaan magaalada Southampton ee gobolka New York. Lisa waxaa korsatay hooyada Judith, balse aabeed Franka Holstead kuma jirin nolosheeda gabi ahaanba, waayo ma aysan garanayn. sidoo kale waxay wada koreen walaasheed Deborah oo ay 3 sano ka weyneed. Lisa hooyadeed inkastoo aysan waxba haysan, haddana waxay aad ugu dadaashay korintooda, waayo aad ayay u jecleed labadeeda gabdhood. Lisa waqtigeeda firaaqada waxay aad u jecleed kuna raaxaysan jirtay farda fuulista iyo sawir qaadista. Lisa iyadoo aad u da'yar oo 17 jir ayay uur qaaday, ugu dambeynna wiil ayay dhashay, kaasoo ay u bixisay Jimmy. Lisa ayaa aad u jecleed wiilkeeda sida hooyadeed oo kale ayay keligeed soo korisay, maadaama wiilka yar aabihiis uusan doonayn inuu sinaba u caawiyo. iyadoo doonaysa madax banaanideeda waxay qaadatay go'aan adag, kaasoo ahaa inay ka guurto qoyskeeda New York, waxayna ku nooleed Los Angeles dhowr sano ka hor inta aysan u wareegin magaalada Green Bay ee gobolka Wisconsin. laakiin ma jirto xog diiwaan gashan oo ku saabsan inay horey wax u soo baratay, balse markii ay soo degtay magaaladan yar ee Green Bay, waxay bilowday koorso waxbarashada dadka waaweyn, gaar ahaan iskuulka North East Wisconsin Technical Institute intii u dhaxaysay 1983 ilaa 1984. 1986 Lisa waxay ahayd 22 jir, halka wiilkeeda Jimmy-na uu ahaa 5 jir. Lisa waxay bilowday inay dib u bilowdo nolosheedii caadiga ahayd, oo waxay dib u bilowday waqtigeedii shukaansiga iyo hasaawaha. waxay xiriir jecel la bilowday nin la oran jiray John Saw oo ay aad u jecleyd. gurigeeda ayuuna soo agdegay, aadna way ugu faraxsanayd. Lisa iyo John waxay jeclaayeen inay waqti badan la qaataan Jimmy, iyagoo inta badan u qaadan jiray kalluumaysiga. badanaa habeenkii markuu seexdo waxay aadi jireen bannaanka si ay waqti macaan ugu soo qaataan baararka u dhow guriga. noloshooda ayaa u muuqatay mid si wanaagsan u socota, iyagoo rajo weyn ka qaba mustaqbalkooda quruxda badan inta noloshooda ka dhiman. balse nasiib darro, mustaqbalka iyo rajada ay qabeen ma noqon doonto kii ay haminayeen, mana noqon doonto mid farxad gelin doona John. Agoosto 12-1986 guud ahaan gobolka Wisconsin waxay u ahayd maalin Talaado ah. nolosha ay caadi tahay, laakiin John waxay u ahayd subax aad u xun. isaga iyo Lisa habeenkaas way baxeen si ay khamri u soo wada cabaan. waxay tageen baarar badan iyagoo ilaa habeenkii oo dhan wada ciyaarayay. guriga markii ay ku soo laabteen, inkastoo ay aad u sarqaansanaayeen, haddana Lisa waxay go'aansatay gaariga inay uga degto isgoyskii u dhowaa gurigeeda. John ayaa aaday gurigiisa isagoo rajaynaya inay tagto gurigeeda, balse subaxii xigay ayuu ogaaday inaysan imaan. walwal badan ayaana ku dhashay John. wuu soo baxay si uu u raadiyo, balse markii uu meel walba ka waayay, wuxuu go'aansaday inuu booliiska ku wargeliyo inay maqan tahay saaxiibtiis. ugu dambeynna wuu wargeliyay. 1 saac gudaheed markii uu sheegay in la la'yahay, waxaa helay meydkeeda 2 ka mid ah shaqaalaha, xilli ay ku sugnayd meel u dhow xeebta galbeed ee beerta warshada ee dekedda Green Bay. si naxariis darro ayaa loogu tuuray goobtaas. malaha gacan ku dhiiglaha wuxuu rajaynayay inaan weligeed la arkin Lisa. booliiska ayaa loo wacay wax yar kadibna goobta waxaa soo gaaray booliiska iyo dambibaarayaasha. markii ay yimaadeen saraakiisha waaxda booliiska ee Green Bay, waxay baaritaan ku sameeyeen meydka iyo goobta uu dambiga ka dhacay. booliiska ayaa ku qasbanaaday inay eegaan qoorteeda, taasoo muujinaysa in la ceejiyey ka hor dilkeeda. kiiska ayaana loo diiwaangeliyey weerar dil ah. meydka ayaa loo diray shaybaarka si baaritaan loogu sameeyo, iyadoo booliiska ay bilaabeen inay waraysiyo la yeeshaan
dadka aaggaas joogay si ay isugu dayaan inay ogaadaan haddii ay jirto cid haysa sababta loo dilay Liisa. saaxiibkeed iyo qoyskeeda ayaa lala wadaagay geerida iyagoo aad uga xumaaday warkaas dhiilada leh. booliiska waxay qaadeen raadad ay ka heleen goobta dembiga uu ka dhacay iyagoo rajaynaya inay wax u horseedi doonto. waxaa soo baxday natiijadii baaritaanka. waxaa qamri laga helay dhiigga Liisa kaasoo ahaa 25% habeenkii la dilay, waana 2 jibaar in ka badan xadka sharciga ah ee laga cabo qamriga. sidoo kale baaritaanka meydka ayaa lagu ogaaday in si arxan dara loo faraxumeeyey ka hor intaan la dilin. booliiska ayaana sheegay in tani u badan tahay sababta ka dambaysa dilkeeda. baarayaasha ayaa awood u yeeshay inay soo saaraan DNA-da dambiilaha ee laga helay jirka gabadha, laakiin weli caddayntaas faa'iido ma lahayn. si kastaba ha ahaatee DNA-da ayaa la keydiyey iyagoo qabay rajo ah inay faa'iido u yeelan doonto baaritaanka dambe. dambi baarayaasha waxay eegeen tuhmanayaasha suurtagalka ah iyagoo su'aalo weydiinayay dambiilayaal lagu yaqaanay aaggaas, laakiin ma jirin qof si rasmiya loo soo xiray. hase ahaatee aakhirkii dabagalka booliiska ayaa yaraaday, kiiskuna wuu qaboobay. in ka badan 30 sano kiiska ayaa ahaa mid qabow iyadoo aanan lahaynin caddaymo cusub marka loo eego tuhmanayaasha iyo hogaamiyaasha. laakiin sanadkii 2020 baaritaanka ayaa dib loo furay. baaritaanka ayaana loo xil saaray sargaal cusub kaasoo lagu magacaabayay David Graff, kana tirsan FBI-da ayaa hogaaminayay baaritaanka. wuxuuna bilaabay inuu eego kiiska si uu isugu dayo inuu ogaado qofka uu noqon karo gacan ku dhiiglaha. wuxuu fiiriyey dhammaan galkii hore kiiska. wuxuu dib u eegay dhammaan caddaymihii baaristii hore. markii uu arkay DNA-da la keydiyey, wuxuu ogaaday inay furo u tahay kiiskana ay dhinac u ridi doonto. wuxuu go'aansaday inuu adeegsado hidda-sidaha si uu isugu dayo in la ogaado cidda wax dishay ee la mid noqon karta abtirsiinta hidda-sidaha, taasoo abuuraysa taariikhda qoyska iyadoo la adeegsanayo natiijooyinka baaritaanka DNA-da oo lagu darayo habka abtirsiinta hidda-sidaha, iyadoo loo isticmaali karo qaraabada ugu dhow shakhsiyaadka aan la aqoonsan karin DNA-da profilkooda maadaama aysan ku jirin nidaamka. markii habkaas cusub lagu adeegsaday DNA-da, baarayaasha waxay la soo laabteen xog badan oo ku saabsan hidda-sidaha nin cusub. xogtaas oo booliiska u jeexday dariiqii ay ku heli lahaayeen tuhmanaha cusub. sidoo kale baarayaasha ayaa xaqiijiyey inay u suuro gashay inay ogaadaan qaar badan oo ka mida qaraabadiisa fog ee shakhsiga ah, taasoo ugu dambayntii DNA-da ay ku dhiseen tiro qoys ah oo ka caawiyey inay helaan dambiilaha. waxay heleen koox dad ah oo ku noolaa gobol kale kuwaasoo ugu dambayntii horseeday guusha. waxay heleen nin ka tirsanaa qoys 1986 kaasoo ku noolaa Green Bay. Lou Griffin 1986. ninkan ayaa xabsiga laga sii daayay bil ka hor inta aan la dilin Liisa, kaasoo xabsiga ugu jiray faldambiyeed kufsi ah. 1981 intii lagu guda jiray baaritaankii hore, booliiska ayaanan keydin raadadkii meesha laga soo helay, sababtoo ah booliiska ayaa dareemay in ninkan uu ku sugnaa goobta dilka. waqtigaas waxay u baahdeen inay xaqiijiyaan DNA-diisa, sidaa darteed booliiska ayaa ku raad joogay ninkan 65 jirka ah, dabagalna ku hayay waqti badan. maalin ayay arkeen isagoo dhalada biirka iyo qaybta dambe ee sigaarka ku tuuraya qashin-qubka, taasoo booliiska ay soo ururiyeen si ay ugu isticmaalaan baaritaanka DNA-diisa saxda. ugu dambeyn natiijadii baaritaanka ayaa soo baxday, taasoo booliiska ay rajaynayeen inay noqoto ciyaartii ay wada filayeen. 30 sano kadib booliiska waxay qabteen dambiilihii. Oktoobar 28 2000 abaara 6 subaxnimo, Griffin waxaa xiray booliiska isagoo jooga bannaanka gurigiisa, waxaana la geeyey xabsiga Brown City. markii ay booliiska su'aalo weydiiyeen, wuxuu markii hore diiday inuu wax lug ku lahaa dilka, balse wuxuu aakhirkii qirtay inuu u galmooday Liisa Hosted. booliiskana ayuu sheegay in habeenkaas uu dilka dhacay 1986. wuxuu yidhi waxaan aad u cabi jiray daroogada kokaayinta iyo khamriga, sidaa awgeed waxa dhabta ah aan ku sameeyey ma xaqiijin karin. sidoo kale wuxuu sheegay waddada meydka laga helay inuu maray markii uu u socday xaafadiisa, balse wuxuu yidhi waxaan xaqiijin karaa oo keliya inaan faraxumeeyey. waxaana lagu soo oogay dacwad dil darajada koowaad ah. dacwadda ayaana bilaabatay January 27 2023. Griffin wuxuu heshiis qarsoodi ah la galay dacwad oogayaasha, balse maxkamadda ayaa ku heshay dembiga waxaana lagu soo oogay dacwad dil ula kac ah darajada koowaad. dhageysiga xukunka waxaa loo qorsheeyey March 27 2023. kadib markii gacan ku dhiiglaha la soo qabtay, Jimmy oo 5 jir ahaa markii hooyadiis la dilayay, hadda waa 39 jir, kaasoo saxaafadda la hadlay. wuxuu sheegay inuu aad uga mahadcelinayo dadaalka ay sameeyeen dambi baarayaasha oo shaqeeyay.
aad bay u adag tahay in la helo tuhmano muddadaas oo dhan kadib. wuxuu sidoo kale ka murugooday in hooyadiis iyo habaryartiis aysan nooleen wakhtigan si ay u arkaan ninkii dilay hooyadiis. sanadii 2003 Liisa walaasheed ayaa geeriyootay, halka ayeeydiis hooyo dhashayna ay dhimatay 1 sano ka hor intaan la qaban gacan ku dhiiglaha 2019. hadda waa la xiray, ciqaabtiisana wuu maraa. waa wax la mid ah waxa qoyska ay rabeen 34 sano ee la soo dhaafay. Disclosure, same thing in the whole family line for the last 34 years. No, it's just my grandma's still alive, to be able to see this. ayuu yiri waxaan jeclaan lahaa in ayeeye nooshahay si ay u aragto ciqaabta gacan ku dhiiglaha. waan ku faraxsanahay ayuu yiri Jimmy, inkastoo hooyaday ay qaadatay waqti dheer. ugu dambeyntii hooyaday waxaan u rajaynayaa inay nasiino heli doonto. baaritaanka kiiska ayaana tusaale u noqonaya awoodda tiknoolajiyadda casriga ah ee dambi baarista. si kastaba ha ahaatee gacan ku dhiiglaha waxaa lagu xukumay xabsi daa'in aanan lahayn sii dayn sharafeed. daawada adigana sidee u aragtaa kiiskan iyo tiknoolajiyadda ay adeegsadeen hay'adaha FBI-da Mareykanka? Soomaaliya ma u rajaynaya inay xaqiijiso iyadana sanadaha soo socda. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.